بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال سو دواada maanta waa magaalo cusub iyo muuqaal cusub. aad baan inii salaamaya. magaaladan waxa la yiraahdaa Albaaxa. halkan waa magaalada dhexdeedii weeye. waa maasha Allah tabaarakallah. maanta waa jumco, salaadii jumcada lagu jira. aad iyo aad baan inii salaamaya walaalayaal. soo dhawaadaan inay leeyahay mar walba muuqaalo cusub oo aad macan aydinaan horay u arag ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah tacaala. mawduucyo badan oo aan ilaahay idamkiisa aad wax badan ka ogaataan oo wax badan aad xikmada kala baxdaan baan idin soo gudbin doonaa insha Allah tacaala. aad iyo aad baan idin salaamaya walaal. soo dhawaada. beledkan waa magaaladan waa magaalo aad u qabow. waqtiyadan meel ka qabow mamlakada ma lahan, marka waa in salaamaya. Albaaxa waa magaalo qabow weeye. magaalo waqtiyadan seefka lagu jiro aad iyo aad u qabow weeye oo dadka mamlakada oo dhan Albaaxa, Abha, Namaas dhulka ugu qabow ayay ka mid tahay. waana idin salaamaya. aad iyo aad baan idin salaamaya. ku soo dhawaada marka muuqaal cusub iyo magaalo cusub iyo meel cusub. ku soo dhawaada. magaaladan waa magaalo aad iyo aad dalxiiska ugu wanaagsan. magaalo indhaha u roon weeye. jabalkeedu xataa waa jabal akhdar waaye. waa kuwaasa jabalku waa akhdar. magaaladu waa magaalo maasha Allah Albaaxa la yiraahdaa. mandaqadaha mamlakada ayay ka mid tahay. magaalooyinkan aad baa loo dhisay maasha Allah tabaarakallah. nicmada ay haystaan ilaahay ha u siyaadiyaan leenahay. annagana waddanka iyaga nooga dhigo waddan wanaagsan. muuqaaladan waxaan u soo duubayaa inta badan inagu dalkeennii waynu baabi'inay, waynu burburinay, waynu cunnay. marka haddee inaynu kuwaana qaadanno oo waddankeenna dhisanno oo kuweenna qurbaha jooga ay waddankoodii aadaan oo waddanka wax ka dhisaan oo waxay soo barteen geeyaan ayaa loo baahan yahay walaalayaal. marka walaalayaal warbixinta magaalada haddaan intaa kaga baxo oon u soo noqdo waddankan iyo waxa ilaahay ugu nicmeeyey. ilaahay wuu u nicmeeyey. nicmaduna wax walbay gashaa. qofkii ilaahay caafimaad siiyey ama uu siiyey awlaad siiyey, risaaqad xalaala siiyey, sawjad xalaala siiyey ama sawj xalaala siiyey, waa nicmo weeye. ilaahayna nicmadiisa ma aynu soo koobi karno. wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. neeftan aynu neefsanaynaa waa nicmo ilaahay. lacag la'aan baynu ku helnay, balse dad baa oksijiin lagu xiraa. dad baa dhibaataysan, dad baa gaajaysan, dad baa waxa dhibaatadooda aan la soo koobi karin. marka ilaahayna waxaan leenahay nicmada haynoo tammimo. nicmooyinka ilaahay way fara badan yihiin walaalayaal. waxaynu soo koobi karnana maahan. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay nicmada inoo siyaadiyo, caafimaadka inoo siyaadiyo. qof walibana waxa ilaahay siiyey inuu ku xamdiyo oo uu ku kalsoon yahay ilaahay uu ku xamdiyo waa wax loo baahan yahay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wain shakartum la'azidannakum. walaalayaal marka muuqaalkan yaroo aan idinka soo duubay magaaladan Albaaxa la yidhaahdo intaas ayaan ku soo koobaya hadduu ilaahay idinkiisa noqoto. waxaan kale oo idinku sii darayaa insha Allah maqtac kale haddii aan ka gaaro. haddaan ka gaari waayana waqti kale ayaan inoo ka dhigaya. aynu nicmada alle iyo nabadgelyada aynu ku dadaalno in ilaahay nicmo ina siiyo oo nabadgelyo ina siiyo oo dhibka iyo dhibaatooyinka ina ka saaro. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay ummadeenna ka yeelo ummad xaqa garata. kuwa xaqa garta ilaahay hayna ka yeelo walaalayaal. dhibaatooyin badan baa dhacay. waa dadkeennii iyo waddankeennii wuxuu u baahan yahay inaynu Allah u noqonno. haddaynu ilaahay u noqonno ilaahay waa inoo nicmaynaya subxaanahu wa tacaala. marka walaalayaal waxaan ku soo koobayaa intaas ayaan ku soo koobayaa maanta. waana ini salaamaya. waxaan idinkaga tegayaa insha Allahu meel cusub ilaahay idamkiisa iyo
magaalo cusub iyo wax cusub oo in farxad geliya ama aad ku waana qaadataan ama ku cibro qaadataan ilaahay idamkiisa inaan inii soo duubo maxaa cusub maanta intaan ayaan ku soo koobayaa ilaahay idamkiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh